madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa shir uga furmay Dhuusamareeb xildhibaanada labada aqal waa aqalka baarlamaanka Soomaaliya ee dawladda federaalka iyo siyaasiyiin ka soo horjeeda gobolada waqooyi oo iyana shir ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in shirka maanta Dhuusamareeb ka furmay aan loo dhamayn warbixin ku saabsan shirka Dhuusamareeb iyo shir jaraa'id ee Muqdisho ka dhacay waxa ay noo soo dirtay wariyaheena Beel Sheego xarunta madaxtooyada maamulka galmudug ee magaalada Dhuusamareeb ayaa saaka waxa ka furmay shirka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir madaxweyne Farmaajo oo markii hore ku baaqay shirkan oo loo qorsheeyay inuu socon doono 3 maalmood ayaa saaka si rasmi ah u furay waxaa shirkan loo fadhiyay sidaad wada ogtihiinba uu soo bilaabmay qaybihiisii hore muddo dheer oo magaaladan Samareeb uu ka bilaabmay waatii aad ogeydeen in Muqdisho uu 17 September sanadkii dhawaan dhamaaday ee 2020 ay madaxdu wada gaadheen heshiiska iyo hanaanka doorashada iyo habraacyada doorashada lagu galayo marka shirkani dhamaanba wuxuu ku saabsan yahay sidii heshiiskaas September 2020 loo hirgelin lahaa waxyaalaha sida gaarka ah diiradda lagu saari doono waxa kamid ah xal u helidda caqabadaha hortaagan doorashooyinka oo ay kamid tahay arinta maamulka Jubbaland ee gobolka Gedo xalinta khilaafka ka taagan soo xulista kuraasta gobolada waqooyi iyo guddiga farsamada doorasho ee ku yimid heshiiskii sanadkii hore ee Dhuusamareeb oo noqday mid isagana lagu muransan yahay shirkan oo loo qabtay dhinacyada isku khilaafsan doorashooyinka isku soo dhawaadaan oo ay wada hadlaan ayaa waxa ay siyaasiyiinta qaar u arkaan inaan loo dhamayn iyagoo ku baaqay in isugu yimaado shirweyne qaran si looga wada xaajoodo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka haddaba waxaanu si adag u diidanahay in aan loo dhamayn ka qaybgalka shirka oo ay ka maqan tahay matalaadda gobolada waqooyi Somaliland oo ka mid ah 3 arrimood ee khilaafka doorashadu ka taagan yihiin sidaa darteed waxaan halkan ugu baaqaynaa madaxda shiraysa musharaxiinta xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya bulshada rayidka ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee beesha caalamka in la isugu yimaado shirweyne qaran gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa sheegay in xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi aan shirkaasi lagu casuumin isla markaana laga diiday markii uu dalbaday inuu ka qayb galo waxaan ka xumahay shirka lagu qabanayo ee ay ku shirayaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu inaan aqalkani uuna ka qayb gelin oo halkaas maxay cadeynaysaa 2 sababood ayay cadeynaysaa waxay cadeynaysaa madaxweynaha jamhuuriyaddu inuuna ogolayn aqoonsanayn nidaamka la qaatay ee federaalka waxa kale uuna aqoonsanayn uuna fahamsanayn in Soomaaliland diba ka maqan tahay oo uu moodayo dalkii oo mid ah oo isku jira oo jooga inuu madaxweyne u yahay iyadoo xilli madaxeedka madaxweyne Farmaajo ay ka hartay 4 maalmood ayaa waxa la rajeynayaa in xal loo helo khilaafka iyo hubanti la'aanta hareereysay doorashooyinka dalka hase yeeshee shirka laf ahaantiisa ayaa muran ka taagan yahay natiijada ka soo baxday shirkan ayaa go'aamin doonta masiirka iyo hanaanka doorashada Soomaaliya Beel Sheego BBC Muqdisho